mucaaradka deegaanka Soomaalida warqad bay soo saareen ay iyaga oo si kulul wax uga jawaabaya warqadaas sidoo aragtay ay soo saareen madax maasiin deegaanka mucaarad ma joogay mucaaradka shantooda shaambadaha wata iska soo shaqo tagay iska daayaka mucaarad ma oo lafun ba mucaaradku inta dibadda joogtaa war anu ragii dhulkooga iyo hablahooga lagu qabsaday lagu leeyba ii mucaarad waxaan waa kuwa soo shaqo tagay odayada xildhibaanada doonaya way heleen mitaa xeer Mustafa ugu dhawaadaan inta kuwan kale ninka ka dhex dagaalamaya ee BB-da ka dhex dagaalaman garanaya ninkaas nin u garanaya mucaaradnimadan u cadaysta oo leh Mustafa Ibrahim anu yuka Mustafa Ibrahim ilaahuna dhaafida leh ku soo celin way bay dulmeen aniga inta qaar badan oo kale waa ogola shahaada Soomaalidu soo maraan shahaadada shaqo kaga waayay hal mashruuc baan ka waayay wax la qabto dhakhtar baan ka waayay marka kuwan war ibaka oramo fursadda ku helay waxa leeyahay ilaahuna si dhaaf baan odayga hadaa wadanka xukuma maalin inaan helaan isku dayaay waxa leeyahay waradeer meesha ba markaan kula xoroonayno rag baan hayna maanta inaan kula fulxmaan rag meesha ma naga qabatay waxyaabaha ibaka qolada meesha kaliya doodaysay diidaysay waa xamashi ee meesha dhibta oo kaliya wax walba aniga mid baa xabad baa ku sheegay mid baa booday anu meesha ka rafadhiyan kuul marka Soomaaliga luqadda Itoobiya waxa laga dhigo wayne ambarteetana ka abuudi xunurtaydi baa la tahay wallahi ma lagaga joogsadaa ku raadartay baasto meesha waa wada leeyahay ana aad ka dilweyno ka hadlo ma ku raado luqad baa dadka ku hadla luqadii ugu dadweynaydii hore meel la jeedo dadka yimid xunurtaydi baa la taaftay uu aaminsan yahay dad waxa kale oo dhan inayna Itoobiyaan ahayn Itoobiyaan wala Oromo aaminsanay sokuwan maalin dhowta amxaaradii Tigray soo ku isdagaaleen oo meeshii shirkan dib loo dhigay horta meesha waa la isku hanjaba annagu waa isku hanjabnay isku hanjabteen war mid baa gabadha ii weydaarto markay geela tiri la booday annaguna waa la boodnay marka adeer baash barya kuma imanaynin walba fikirkiisa xor buu yahay hal laga mid tagay aad fikirkaaga dhiibo Sawdiga kii aabahay lagu laayay soo daba wadeele calanka Itoobiya waa kani imbirteetana ka adahay inda faraa si galnayna hada qofna amxaaray Tigray kaliya ma dagaalamay amxaaray Oromo waa qof wax walba laga doodo meesha xor baa loo yahay far uun inaad dhaqaajo dawaan feertami laba joog waa la iska cabsiinaya hadii laga cabsiyo cabsatada hada cirka roobko waxa mar walba waxa lagu yiraahdaa cabsidan baas iska daaya wax ay u baahan tahay inaan ka cabsano ma jirta maxba wax cabsiye ma jirto war fikirkaato aniga hal fikiraan qabaa haye oo wax qoliyaha ibaka on left matalaysa hal fikir oo markaan meesha ka soo jeediyo jirto marka la yiri on left baa meesha talsa ku wadaal on left ciisiye gad bursi weyn tani si saxdayd wadanka ma وريال قرن هذا هذا نبى جيل جرى ودي نباشي سكر جرك بأوبد كوجي ريره ضد كي لو حسوقي أو ما أنت دي كوجي وكوجي حقوق الرجل كهل لها حلقوا صدر رجال أنت أو لم تكتيس على إد ما حدك أنا تي عيسى لا ريال حبيبك قدومي أو شعر ما عرير بس كلا رجل بس كلا هذا باش لسكوا قبضنا يوكل يلاقي waa walaalkay wixiisana waan la jeclaa wixii lagu dulmay ee dadkiisa loogu baabiyay ee loogu dhibaatayna waan sheegaya waxa maxaan weydiiyaa meesha mariyaalan ka yiraahdaa ona lef ku qoyna odayga riyaal iska daa ha iska jaa maxay Abdiile baa oran jiray ha ambuulayste iska daa odayga ama adeer rag runtu ha loo sheego oo nin walba ilaahay inta ka sokaysa raggi maseerka ummadda ee danto iyo dalkooda lagu qabsaday baasha loo qoro taageeradana waa magac un baa naga hagaajin lahayne ee bahashan qaadana ma ahayn xisaab kaabaan ku yiri adoo Itoobiyaan sheegan aan Itoobiyaanka saddex luqadood ka hadlayo oo xamashi baan ku hadlayaa oo Oromaan ku hadlayaa oo Anfar baan ku hadlayaa aad maxaad ku hadashaa afkan ahay xuduudkayba dhaafin kilalkaaga Anfar haddaan galo turjubaan yaan u baahanayaa luqadaada
okay addis ababa igu soo celi marka dooda labada madaxweyne maxay isku qabsadeen lahaanshaha Addis Ababa waa caasimadda Oromiya ha laga dhigo oo sax Oroma aniga haye amxaaran waxay leeyihiin qababa Addis Ababa Oromaale waan gartay ajendayaasha marka la soo dhajinayo oo la soo gudbiyo 250kii markii wiil la soo qoray waxaana loo sheegay in sidii waxyaabi badan oo la isku waafaqay aanan isku waafaqin oo afamxaarkii markii la joodiyo waxa la isku hoosgeliyay arrintaas maxaa ka jira oo maalmo dhan waxaa kidsay horta Axmed Sino waa khatarta u weyn meeshii jirto waa intaa yar dadka waxay ku khaldayaan luqadda xamashiga qoraalka luqadda xamashiga marka waxaan dhalinyarteennii iyo dadkaba wargelinay ergada cidda aanan fahmin qoraalka buugga intaanad saxiixin haddaanad saxiixin meel ma maray waa lagu saxiixayaa qof markaad waxaad ogolaato sax waan gartay wixii aanad fahmin walaalkayo ha saxiixin cid saxiixda ma jiro ciddii wax fahmi weyda midda kale 500 imika waa runtaa waa meesha ugu dhibta badan leh luqadda imika waxa la soo geliyay jimcaha waxaan annaga waxa noogu jirtay sabti axad mar xagga leeyahay fasax waxaan ka nidhi jimcaha iyo axadda hala fadhi ani waa jimcaha maalintii muslimka isagana waa maalintiisii nin weytiisa hala qadariyo waxay soo geliyeen jimcaha 11 ilaa iyo 12 wixii ka dambeeya in fasax la noqday sheeka saasi soo geliyay warada riyatan isugu soo geliyay muslimka canfarahaado oromo ahaado waan ka kacnay waa lagu dayo waa la soo dhaxgelin ku xadayaan dadka ibika meesha behraawinadka leeyahay aandhanad noo soo geliyay war aandhanadka nin baa watay mana wad federalismkii waxaan warada iskala baxbaan nidhi tanide waa lagu qoray fikirkaaga anna lagu qon hadhow go'aankii weli lama gaarin 500 marka wixii go'aanka loo doorto ama go'aanka la soo saaro 575 markaan loo go'aamiyo ayaa waxaasa gudbaya inta la isku fahmi waa qaybta 22 dib uga doodi doona iyaduna oo gaar ya Oromo ماشي حولها لا يقص صور دعي اللي قد سيء يجي ما تحق بعض ولا هذا هو طلي أخوي بي حتى مرة تقرأي يسول لي آذن إنه رح عادي أورمنا نقوا وإلهي قلدي كي يقوم هذا شلي سمورة كده ماشي مسلم كي أقسم أيام تقنا مال أي كنت كذا مساجد الله ما أقول قبور الله ما أقول مركز سيد على نفسه يقول مرة باشا بيد وصوت توريك وده باشا داس أنت الدين تا سمورة محو أنت هو قال لي يمكن محو مرة وقال لي واي محو الدين تو قاضي يا نول مسلمين اللي والله الله يا نول بفكر كيس يوحي كجري ودكتور كسيري وترى يتوبيا حمشد الله ما أقول ما يشاسي مساجد الله ما أقول قبور الله ما أقول قبور مثل هو أصلا الله ما أقول مسلمين ويدقين مسلمين بأكثر مقوب بدن بتجن أو عايشة دي أفيانكي قولها فدريشة كامدة أو إسحاق كامدة ورير كذا أنت ماشي تجمع محمد كان لو جودي دنيا ومع إثيوبيا لماذا لقى هذا مركا دينتي السنانتي مش تجي كا أنت يرى كل نحن هو قليل أنا قلت تقول هي أركتي ماشي وسه عاصمة برتن كي جافرت بيني كرتي وده كم رئيس يعني أقول هيساقو حل شخصية ماشي دول كقولي وبكسي حنوا يعني مركان شوقي جيجي iyo dirdo markaan joogay ba iyaga qayladoodii baan ka seexan waayay eedaan 24 saac socda ama maqlaysaa oo lagu dilaadimay ka tigreega inta yar sida u xasuuqay baa kule Itoobiya midaan doonaya Itoobiya nu halgamaya waraa tigreega halgamaysa Soomaali baan xaday xabadu ay kala baxdo laakiin ha wada tashanna baa lagu miis baa lagu sameeyay dooda annagu waxaan mar walba Soomaalidu mataqaanaa 200 qof baan 4,000 ka nahay wax macna leh oo aan samayn karnaa meeshaas wixii ka soo baxa ay kasta waan ku khasbanahay inaan qaadano maxaa ka jira horta Axmed Sino maanta Itoobiya Soomaali bay ku taagan tahay cid ay u baahan tahay fikirkayga labada dhinacba waa annaga horta haddaan adigu qiimahaaga garan weydaa ugu daran dadka nasiib darrada haysan war cid ay ku taagan tahay baaba annaga oo wax inay maanta dadkan kala xalinaya oo xalkii ah oo dawadii ah oo kala haday marka annagu meesha labada qof baa ka taya fiican 200 ee sheegaysa oo isma ba dhageysanaysa waa tan videos galaysa
وأنا علنك عدح ولالي وروان نبضي وطك هو وضلين حديك هذا حاجة كده إن حاجة كده شيء So laakiin de still meeshaan ku dhacayo laisku xadaya adigana aad qiratay anaa leeyahay anna kuma nihin dadka ajendaha qoriya ma nihin mar walba wax yaa noogu jira ajendaha gabar baa ku jirta ma hal group bay ku jirtaa gabadhu mise gurubyadoo dhan bay ku jirtaa qayb kasti 30 qof baa laga doortay 500 mataqaanaa 500 qof gabar baa annaga namatasha kaafiya la yiraahdo oo jaamacadda qabri dahare ka socda okay so wax walba oo ku soco ilka halka dhexdeeda waxa dhacday qodobadii aan annagu Soomaaliyan ama qaybteeda igula jirtay aan isku heshiinay ee meesha miiska la qoray ay ka saareen waa booska iyaduna ka soo gelisay ay yiraahdeen abaagaraaga calanka ha lagu sameeyo kii kale masqalkii ha la keeno kii kale nadiiftii ay ragani lahaayeen kaniisada ay ha la keeno markaas ayadna ha shadhax dhig kadib warkii baa yimid annaguna furka tooray halkaas ku tuurta adigana sababtoo anigu aqalka dawladda Itoobiya looga taliyo maantaan galay oo Itoobiyaan balayaar ku aadan dhex fadhiisa ama nin Soomaaliya wagan waan gartay xoolaha iyagu inta la soo dhac la gashanayay wali rag yima gelin maanta rag iga galay marka kii dhaweeyay baa iskale anu kaaban raaxsana waayahay waxaan rabaa meel kale inaan yar taabto haddaba magaalooyinka way soconayaan oo Addis Ababa hadda laga hadlayaa dirdhaba way ku daba xigtaa soo maaha way ku xigtaa wayba ka way dhex socotaa dirdhaba sideedaaba isla qaadanay oo dadku macal Oromo macal Soomaalidu hadii fadlan waxaan maqlayay dad dhahaya dirdhaba Soomaali Oromo waxa loo kala qaybiyo haba laga saaro amxaarada arrintaas aniga Cusmaana konton laakiin hal qof waa calankii dargii ani la igu xasuuqay kaaramarna lagu xasuuqay ee ay shacab lagu xasuuqay ee dadkayga kiibay ku leeyihiin waa calankii Itoobiya kaaramar biga leeyahay taalaha laga sameeyo halyeeyadii ragii igu soo duulay waliba reerahayaga igu dhex mariyay ku leeyahay taalaha laga sameeyo kaaba marka raacaya nin waalan baan damiirka wax ka seey waayahay raga waa adigii xildhibaan baad u carar lahayd xildhibaanadaad maxaa ku dhacay horta adigu waa anaga wada hadli jirnay buur yar iga hoos galay koofiyado uu ii diiday dhab marka qoladan kale Ibrahim Dheere intaan haddana qorto baan ku tusiyay baaba waa nin iska BBA weeyaan oo magaca Milan Sawra baaba yiri may Cusmaan way warwareegay wartay adeer Saudi iga lahaayeen wax ka seen xareey oo Ibrahimna waxa weeye uu ku cakiray waa sawkii salaada la xidhay maalintii dambe Cusmaan xisbiga walaalahaay way ku jecel yihiin war jacayladii nacayba iskuma haynaa ku waa hunguri waxa isku haynaa rag sida salaad adeer in soo shaqo tagaan mooday inuu mucaarate bagaaba geli waayaan ku taydii ma ka sii dhex dagaalamo ka dhex qaylin fiidii ma ka dhex qaylin meesha ila gaadhaba interviewgan waa mid masiiri oo serious ah laakiin niyo qosolkii baad iga dhamaysay saa runta u sheegaysid kaftanka saa runta ugu sheegaysid ayaa wax kala ah so marka xaggaasaa suukiin dambaysa xildhibaannimada halkaas laakiin rag badan baa ka keeni lahayd Ibrahim qolo xafiiska Ibrahim Dheere intaan ku war adeer raggan moodaysiinaa sayno waagin cabdi la dagaalamayay asmaana uu hayno sheef yar baan u haay ibaka mooy waan fool xumaaday dabadeed xalaqii dabadeed Ibrahimna tirnaba gaabligii Oromiya maxaar ka ridayay waa ku ibaka laakiin nin jaakiin uu baba salaama waa ku nin koofiyad way waqtiga biyo saasiday waayahay waxaasoo idinku dhinaciina isku ajendaa tihiin danta guud ee Soomaalinimo ayaa difaacaysaan amxaara iyo Oromana iyo Tigray iyo Anfar intaba adigu indhaha faraha gelinaysa cid ku dhahaysa war joog ma jirto ana arinta Ahmed Sina ku raaciye ma jirto cid oranaysa Mustafa ma wixii xagga Itoobiya markaan joogno waaba janna galan leeyahay waayo deegaanka horumarka walaalkay qofka waa sheegay ee wixii yar isku haynay waa xagga guriga haydo dib markaa u dhiga waa Itoobiya meesha waan gartay marka wixii Itoobiya iyaan meesha u fadhinaa ninka
dhinac kale u socdo waa nin waalan dee ma cilaajada jijiga waaba laga furay wadaadad badan baaba soo galay waddanka nabadiiya baan ku xaraynaynaa kaa madaxweyne Mustafa iyo dowlad deegaanka wax dhaliil ah oo u haysid oo wada tashigan qaran ah oo faragelin ah oo jirtaa ma jirtaa leedahay ma jirto horta wax dhaliil ah oo faragelinay xagga gacmaha un bay kaga yar jabiyeen dadka sida kale waa saxdi waxay soo farageliyeen malaha waan gartay ururada mucaaradka ah ee meesha kula fadhiya ama ururada aad leedahay waa BB bay ka mid ka yihiin ee aan mucaaradka ahayn iyaku masiirka Soomaalida sida adiga u la dagaalamayso dadku kugulama jiraan oo isku fikir ma tiidin way fikirka way nala socdaan oday qaylileeba waan way raga mucaaradka bal habi waxaan la yar lahayd jiro qalluucisan ha laga helo yan noqotay ila reer waxdu nin waa la lahay waana la dul mariyay xabada waa warkaaba ku dhaqtar la yiraahdo way aaminsan waxa tiraahday waana raac sax waa si fikir Soomaaliyeed bay leeyihiin marka habeenkii baan arkaa beejadkooga iyako wax kala ka sheekaynay adeer waa maxmed laba wajiba meesha gudaha meesha xiniyo kuma laha leedahay meesha kama hadlayaan warqad la qoro maalintii horeysay lama qiimeyn oo loogama soo jawaabin Itoobiya ugama jawaabin kolay li qowmina ku haysaa u garo oo baba la hadin baa leedahay wax soo qoreen dan lama gelin ar jawaaba ma heli adeer waa inay rag iska laab la kaciyiin waa la yar ogyahay rag maxaa jira maxaa khaldan meeshaas xagee adiga xaskaaga qabalaad anu qoliyaha mucaaradka waxa rabay inay yiraahdeen waa man la ku aynaa 39 kuwana noo gooyo wadanka wada inay bahasho yar adkeenay dood yar adag soo galiyaan shirka dhaxdiisa ha shirka dhaxdiisa inay dood soo galiyaan baa doonaysa arintana ku saabsan joojino lagu leeyahay ma 39 ku yeelay naga joog hal lagu yiraahdo laanin baa kale Itoobiya waxa aniga igama soo hadhay adnate adigu ma yihi Itoobiya 250 baa laga ka keenan weeyna kala kaxay wayna tiraada waa wadna taariikhdaas waa wadna adeertay waxa waxyaabaha aan doonin dadkiina ogaadaan ka mid ah Mililik ayay nagu wareersheen Mililik bay nooga dhigeen inuu yahay ba halgamaa kaliya ay jiray Itoobiya anu sayidka lagu sameeyay gondar nin xamashi waa ka booday waxaad ka sheekeynaysaa ما يعني سيدك وحمد دون يا بين عاد سبب لقى تاجو كندر بنت لقى عاد سبب وين عاد سبب لقى تاجو ما حد ما فوبيا طبعا قرط ما خرطي فوبيا طبعا قرط وقت ما شنو بك أرول يقول لي هيك جيسيد الله هاي وأروح بكم اللي يعني لما بترين ما أقول لما بقرين ولي ليش باللي يقوم الدرين لكن لبر ريرم بمش كشرحه marka waxa leeyahay meesha awduul leeyahay sayidka waa in garab dhigo oo ingiriis la dagaalamay ninki taariikh dhameystiran oo museum kale taariikh dhameystiran oo anigana taariikhiyadeedii iyo geesiyadeedii Allah u naxariisay cali shaaca oo adba u dambeeyay baan u qortay 12 baa qoratay macal cali shaaca u dambeeyay Allah u naxariisay baan qoray baan qowl waxaad ka sheekeynaysaa kuwii hore bal 12 ka qortay noo sheeg 12 ka sayidka ku jira haye oo salaatintii karamare lagu raadiyo muxudiinadu waa abihi baa ka wada Sultaan Raxmaan odagii bada kamid oo ogaas Xasan baa kamid illa Ahmed Guri oo meel baan reeb rageedii war waxaan ku niri meesha joogtay nin baa naga joogay nin baa noo joogay waan kaaga mahad celinayaa waan